السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha Umu Huda channel ku xiran waa walaashin Umu Huda. Soo dhawaada ayaan idin leeyahay. Saakay waa subax Isniin ah. Maasha Allah, dhar dhaqidaan ka bilaabaya. Fiidiyooga wuu iga kala go'ay dharka markaan diyaarinayay iyo markaan gelinayay qasaalada inay ii shidantahay kaamiradan moodayay. Maasha Allah, waxaan noogu xigi doonta hadduu Ilaahay idmo qaday yar oo maasha Allah aad iyo aad ugu wanaagsan caruurta. makarooni maxaa la dhahay kalluun iyo ukun lagu sameynayo insha Allah oo caruurta aad iyo aad ugu wanaagsan hadduu Ilaahay raali ka noqdo ka raali noqdo babydeeda iga qaylinayso maasha Allah hal iyo cudur daaro marka insha Allah ka faa'iideysta hadduu Ilaahay raali ka noqdo kalluun iyo waxay ka kooban tahay maxaa la dhahaa ukun iyo yaanyo oo yaanyada maxaa la dhahay baakeedyada ku jirto marka insha Allah aad iyo aad ayaad uga faa'iidi doontaan baasta aad iyo aad caruurta protein way aad iyo aad caruurta yar soo koraysa aad ugu fiican insha Allah ka faa'iideysi wacan aan kala faa'iideysana hadduu Ilaahay idmo soo dhawaada ayaan idin leeyahay walaalaha cusub ayaan tan igu soo biirayo soo dhawaada ayaan idin leeyahay walaalihii hore noola jooga maasha Allah nala sii jooga insha Allah subscribe kiyaan la moogaan share-ta commentiga fikradihiina aad iyo aad ay muhiim u yihiin maasha Allah aan isla fiirino hadduu Ilaahay idmo
السلام عليكم، أنا حمود الخضر. إذا عجبكم الفيديو تعرفون شو تسوون؟ سبسكرايب، لايك، شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي. maasha allah tabaaraka allah waxa weeye kalluunkii wuu shiilmay kabacdina waxaan ku daray 5 xabe ukunta ah kadibna filfil yar ayaan ku daray wax yar oo maraq digaag aan ku daraya kama badinaayay maadaama uu kalluunka uu dhanaan leeyahay dan insha allah wax yar aan daynaya way isku soo shiilmaysaa si uu qoyaanka uga bo'o ukunta ay qoyaanka uga ba'do dan maasha allah tabaaraka allah markay isku shiilanto baastadii oo maxaa la dhahayay aan ku soo daray dalac bilaash oo aan ku soo rogay baastadii cadayd insha allah ayaan ayadana soo qaadaya hadduu ilaahay qadaro maasha allah waa u jeedin way shiilantay dan baastadii aan ku daraya maasha allah markii lagu daray saanay ku soo baxday maasha allah qurux baasta makaroni la isku kariyo kaleeto ayay noqotay kadibna waxaan u jarjaray basashaasaan wareeg u soo jarjaray barbarooni yar maasha allah saasaan isugu rogay kalluunkii ukuntii iyo wixii dhan baastadii saasay waxaan ku dhahay iyada dhan dhin isku noqotay maasha allah oo waxaan ku dhahay dhacaan leh oo tasti leh oo maasha allah tabaaraka allah ilmaha markuu cunaayo wax maasha allah ku istaagaya ma ahan waa ilmaha in loo kala gidgidiyo cuntooyinka aaday u fiican tahay sababtoo ah mar waliba haddii waxyaabaha annaga aan karsano ee caadiga dabiiciga noo ah baastada iyo hilibka iyo maxaa la dhahayay dee kaaroodka iyo baradhada leh mar waliba aan sidan majority-ga noo ah aan cunno way ka xiisa dhacayaan mar walba waxa wanaagsan ilmihii in marba wax wiji cusub ah in aad ku daydo maadaama hadda winter lagu jiro cuntooyinkii hore dhan ilmaha way ka xiisa dhacayaan waxa xanuun iyo waxa iska imaanaya joogjoog cuntada dhan ilmaha way kasoo xirmaysaa marba aan marka ku dayna insha allah waxaysan hore u cunin oo maxaa la dhahayay waxyaabihii hore ay hore u cunaayeen ka duwan si ay xiiso ugu qabato insha allah inaad ka faa'iido doontiin aan jeclahay